dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in ay sii xoojin doonto taageerada ay siiso Soomaaliya dhinaca amniga iyadoo xaqiijisay in ay qayb ka sii ahaan doonto howlgalka taageerada iyo xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee magaciisa loo soo gaabiyo AWSOM isla markaana ay sii wadi doonto dagaalka ka dhanka kooxda argagixisada Al-Shabaab. Wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Jabuuti Sareeyo Guuto Sakariya Sheekh Ibraahim oo ay la socdeen saraakiil sare oo militari ah ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho halkaas oo ay kulan kula qaateen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. kulanka oo ka dhacay Villa Soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga dhinaca amniga ee labada dal, dardargelinta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, isdhaafsiga xogaha sirdoonka, tababarada ciidamada iyo sidii loo adkeyn lahaa amniga deegaanada laga xoreeyay kooxda argagixisada Al-Shabaab. sidoo kale kulanka ayaa waxaa looga hadlay caqabadaha dhaqaale ee saameeyay howlgalka AWSOM gaar ahaan dib u dhaca uu ku yimid dhaqaalaha lagu taageerayo ciidamada howlgalka. mas'uuliyiinta dalka walaalahan ah ee Jabuuti ayaa cadeeyay in ciidamadoodu ay sii joogi doonaan Soomaaliya iyagoo xusay in la dagaalanka argagixisada uu yahay mas'uuliyad wadajir ah oo gobolka muhiim u ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa uga mahadceliyay dowladda Jabuuti kaalinta muuqata ay ka qaadanayso sugidda amniga Soomaaliya isagoo ku amaanay nafhornimada ciidamada Jabuuti ee qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo AWSOM. Jabuuti ayaa ka mid ah dalalka ciidamada ugu horeeyay ee soo dirtay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2011 waxaana ciidamadooda ka howlgalaan qaybo ka mid ah dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug halkaas oo ay ka qayb qaataan sugidda amniga, ilaalinta xarumaha muhiimka ah iyo taageerada ciidamada Soomaaliya ee howlgallada ka dhanka kooxda argagixisada Al-Shabaab. Soomaaliya iyo Jabuuti waxaa ka dhaxeeya xiriir qoto dheer oo ku dhisan darisnimo, taariikh, dhaqan iyo iskaashi siyaasadeed. dowladda Jabuuti ayaa muddo dheer door muuqda ka ciyaarisay nabadeynta Soomaaliya, martigelisay shirar dib u heshiisiin ah, isla markaana si joogto ah u taageerta dowlad dhiska, amniga iyo horumarinta hay'adaha dowladda Soomaaliya. labada dal ayaa sidoo kale iska kaashada dhinacyada ganacsiga, dhaqaalaha, amniga, waxbarashada iyo isku xirka gobolka, iyadoo Jabuuti ay weli ay tahay mid ka mid ah saaxiibada ugu dhow Soomaaliya.